soddon sano ayaa ka soo wareegatay intay hawada ka maqnayd diyaaraddii dalka uu lahaa Somali Airline. Haddaba magaalada Melbourne waxaa ku nool Maxamed Yuusuf Cigaal oo ka mid ahaa duuliyaashii ugu horreeyay Somali Airline. Waxa aan weydiiyey inay jirto rajo dib loogu soo celiyo astaantii qaranka. 30 sano ayayna maraysaa. waanana uma jeedo bariiqat amal. tunnelkii waa dheeryahay. wax mugdiyan wali ku jirna waa ka socotaan waxa hadda socda. ilaahay ummadda waxaan ugu baryayaa dariiqa wanaagsan inuu ku toosiyo, laakiin rajada wali ma aynan rajo beelin. dad waa joogaan aqoon leh, waa keeni karnaa calankii, waa la soo celin karaa, laakiin dadka waa in nin walba meesha ku habboon yahay lagu magacaabo. dib u yagleelidda diyaaraddii Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in laga gaabiyey oo aan la raadin dadkii ku habboonaa in hawshaas loo dhiibo. waxa weeye hortore waxaa imaan doona ilaahay, laa yaclamu alghayba ila allah. laakiin waa la kala baxay. dagaalku markuu dhacay anigu 1 Abriil 91 baan xamar ka baxay. waxaan islaa waxbaa dhismaya. markii aan maqalnay in dawlad horumar leh raadinaysa oo maalin walba maalinta kale burburkii ka soo kabanaya ayaan noqonnay. annagu isma magacaabi karno. ninka professionka isma magacaabi karo. waxaa magacaabidda iska leh ninka siyaasadda madax u ah. annakiina isma naqaano. meeshiina waxay noqotay damahoodii kale iyo wixii kale. maanta xaalku siduu yahay waa ka warqabtaan. maxaa dhacay? dadkii efficientka ah oo wax garanayay, hadduu siyaasi yahay, hadduu jaamici yahay, hadduu doctor yahay, hadduu injineer yahay, dalka dadkii waxa uu waliba khibradda lahaa waa maqan yihiin. marka nasiib darradaasaan haysa. waxaan ka baryaynaa madaxda joogtaa inay dib iskugu noqdaan. dadka qaraabada ah ay keenayaan oo ay magacaabayaan inay joojiyaan, waaye yaa istaahila meesha inay wax ku magacaabaan. yaa khibrad u leh sida layskaga horreeyey. waa in layskaga horreeya. haddii kale waxaa iska imaanaya crash baa iska hor imaanaya. dadku waa isjiirayaan. xataa ka adgeysid fiqad iskuma qabo inuu wadi karo. marka ma waaye aad ninkii ku habboonaa aad uga tegaysaa. dalka waa la wada leeyahay, waa la isla xisaabtamayaa. waxaa la yidhi ixsan camalak lianna annaaqida basiir. shaqadaada toosi. maxaa dhacay? ninka ku eedaynayaa waa uu kuu jeedaa. yaan dhaliil lagaa helin. madaxda saasaan u jeedinayaa. dalka diyaarado badan ma lahayn waagaas. kuwa dibadaha u duulana 2 xabo ayay ahaayeen. Soomaaliduna magacyo kala duwan ayay ula baxeen labadaas diyaaradood ee dibadaha u duula. maxay ahaayeen magacyadii loo yaqaanay? dibila loo yaqaanay. maxaa dhacay? 2 ahaayeen oo aan nasan jirin. way imaanaysaa, snaaga laga samaynayaa, wixii technical problem horay bay mataqaanaa ka duulaysaa. marka magaca kale loo yaqaana deeqana waa loo yaqaanay oo dadka way deeqday. dibilahan Soomaalidan xamar jooga dibile u baxshay. dadka mustawagooda ayay ku xiran tahay. dibile waa rar barnaydo dadkii oo dhan bay qaadi jirto, deeqi jirtay. marka deeqana waa la yiraahdaa. magaca rasmiga deeqayahay. Somali Airline waxay ka mid ahayd 60meeyadii diyaaradihii ugu caansanaa qaaradda Afrika, iyadoo isku xiri jirtay Afrika, Aasiya iyo Yurub. safaradooda 2 ay u qaybsanayeen, kuwa guda iyo kuwa dibadeed. kuwa gudaha waxay ka shaqayn jireen regionalska Kismaayo, Baydhabo, maxaa la yiraahdaa Mudug, Bari, ilaa iyo waxay tegi jireen Hargeysa, Burca, Hargeysa ilaa iyo Jabuuti. waa soo noqon jireen. waa regional kuwa gudaha. kuwa kale internationalna waxay aadi jireen Jidda, Middle Eastiga, Abu Dhabi, Dubai, maxaa la yiraahdaa Qaahira, then Talyaaniga, Rome, then Frankfurt. halkaasaa lagu soo samayn jiray. way soo noqon jireen. marka waxay ahayd mid aan dhulkaba fadhinba. khamiista iyo jimcada keliyay lahayd in lagu sameeyo Frankfurt.